kadaasi igu soo diray oo caajiskii iga duuliyay ayaa dhacay waxaana uu ergeygaani ugu yiri ummadda aanu doorinayna ma ahan cawaan ee waa ummadda haysata murti ifkaani taalatii ugu sarreysay ee uu sidatay ee ugu mucjisada weyneed waana ummadda haysata quraanka waa uu arkay inaan ka gaabinayo fahan ahaan markaas ayaa kadib wuxuu yiri ummatul quraan ayaynu doonaynaa in aynu qalibno haddii aynu guuleysano waxaynu noqonaynaa taariikh weyn oo qoranta oo ludadka dambe ay ku faanaan waliba isagu wuxuu adeegsaday hadal macna ahaan kan ka duwan oo u dhigan the greatest hack of human soul kama aanan dhexgelin hadalkiisii oo waxaan u ogolaaday inuu hadalka sii watay dabadeedna waxa uu yiri quraanka dadka yaga ilbaxa ahi waxaan u naqaanaa isha ugu sarreysa ee sharci laga qaato Quran is the greatest law giver laakiin waanu qarinaa oo ma sheegna sirtaan weyn ee ay ka fooraraan dadkaasi sharci kasta oo aadano u baahan yahay quraanka waa uu ku jiraa laakiinse ujeedku waa inaanu muslimiinta ku qancinnaa in ay annaga sharciga naga qaataan isagoo adeegsanaya ereyga secular laws waa uu sii waday isaga oo mid ii tusaya sharciyada aanu aadama dejin karin haddii ay dejiyaana aysan cadaaladi ku salayn karin tusaale ahaan quraanka waxa ku sugan sharciga dhaxalka oo si faahfaahsan u sharaxaya sida dhaxalka loo kala helayo anigu sharciyaqaan ayaan ahay oo waan ka amakaagay qaabka uu u qaybiyey annagu waanu keeni kari weynay oo dhaxalku waa waxa ugu weyn ee dulmiga iyo cadaalad darradu ay ka jirto nidaamka yaga ee reer galbeedka uu dejiyey marka aan sharciga quraanka darsayo mar ayay igu soo dhacdaamay islaamta haddana waxaan ka baqaa inaan lumiyo danahayga dhaqaale xagga yaga sharciga ugu saamaynta badan ee aanu soo xiganno ama lagu dhaataa waa kii Xumuraabi markaad quraanka daraasayso ayaad ogaanaysaa in cadaaladda u sarreysa ay ku sugan tahay xukunka quraanka bal eeg mas'aladan al-aynu bil-ayn al-udhunu bil-udhun al-anfu bil-anf maadaama uu quraanku ahaa gunaanudka xeerka samada ka soo degaya ee ifkan lagu dhaqayo dhammaan diimaha samaawiga ahina ay hal il ay ka soo burqadeen halkaas ayuu Xumuraabi ka soo dheegtay marka uu lahaa eye for eye nose for nose hand on hand haddana quraanka uma qirno sarreynta iyo murtida sharcigiisa marka aan ku leenahay ka soo xigtay uma jeedo inay isku waqti ay ahaayeen laakiin waa in ay isku il ay ka soo baxayaan isha xaqa ay ka soo baxayaan waad arkaysaa murtida halka ay ka soo burqanayso oo ah awood sare waxaanu doonaynaa in lodadka soo aadanay ay ka jeestaan inay bartaan ku fekeraan darsaan kuna dhaqmaan quraanka taasi beddelkeeda waa inay ku faanaan oo ay ku fekeraan sida aanu u fekerno oo kale waa uu sii wada oo waxa uu ii soo bandhigay siraha iyo xeeldheerida quraanka curinta iyo sheeka samaynta ugu sarreysa ee aadamu keeni karin waxay ku sugan tahay quraanka suuradda 12aad bal u fiirsa dhacdadani waxay ku bilaabanaysaa riyo la yaab leh oo sir ah waxaanay ku dhammaanaysaa fasirka riyadii Yuusuf sheekadaasi tu la mid ah la dhigaal ah oo la farshaxan aadanama uu keenin waxayna ku baraysaa mucjisada iyo xeeldheeraanta quraanka tan kalena waxay carinaysaa curinta hal abuurka sheeka samaynta oo ah awoodda ugu weyn ee aadamuhu uu ku gudbiyo fariimaha waana aqaanaa inta ay gaarsiisan yihiin dadka sheekooyinka ban abuurka ama alifa oo halka uu quraanka uu dhigay weligood ma aysan gaarsiin umana aysan soo dhaweynin taas ayaana caddaynaysa xaqnimada quraanka ayuu yidhi inta laga baranayo suuratu Yuusuf adiga ayaa arki doona ee bal waqti si oo daris oo si hoos u eeg waxa murti ku duugan suuradaas waa markii ugu horeysay ee aniga oo muslim sheeganaya la igu tirtirsiiyay in quraanka sharfan aan akhriyo oo fahmo waxaana dareemay sida aan u liito waan isla yaraaday oo aan isyasay waan murugooday hoos ayaan u ooyay isla markaasna waxaan dareemay sida ay nolosha aan ugu qasaaray waxa aan se ka sii xumaaday sida ummatu nabi Muhammad calayhi salaam ay u dayaceen murtidii iyo habmaamulka loo dejiyay ee ay fadliga iyo dheeraadkaba ku lahaayeen waxaana naftu hoos u weydiiyey miyaan u ekaan doonin dameerka culayska siday oo kale waxaan kadib hoos ugu celceliyay aniga oo ciishoonaya waxa uu muuqooda xumaaday kuwa ka jeesta mucjisada alle halka ah inoo joogta qaybta xigta ee